horta inay ka timid inaan ogaado oo warqadii saxda ahayd ay tahay inay golaha wasiirada ka timid oo ra'iisul wasaaraha ka timid ama warqadu khalad tahay oo khalad lagu keenay mudane gudoomiye waxa weeye waa rumaysan laahay golihii wasiirada ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay si wadara isugu raaceen in la yiraahdo dastuurkii dalka uu ku dhaqmayay maalintii xorriyadda qaadanay ilaa maantay xagga la iska dhigo hal ugu tunto qof ajnabi dartiis hal qof oo ajnabi dartiis waxay arintan ay xasuusinaysaa dawladdii ka horeysay oo saxiixday EU-du xafiis ay ka dhisanayso meesha la yiraahdo xalana markaas waxa ku yaala heshiiska lala galay EU-da qof Soomaaliya kama shaqayn karo xafiisyada markii la dhiso ama haysto baasaboor ajnabi ah ama yuusan haysan qof Soomaali u dhashay kama shaqayn karo mudane gudoomiye warqadaani waa khiyaano qaran weeye warqadaasi waa khiyaano qaran baarlamaanka ogaada 275 baynu nahay waxaan ka wakiilnahay in ka badan 15 milyan oo dadka waa la yareeyaa Soomaalida ah 20 milyan baan dadkaas xuquuqdoodii weeye waxa maanta laga hadlayaa wax badan baanu saburay waxaanu u saburaynay waxay ahayd dawlad jacayl bay ahayd yaan wax been baa lahaa maalin walba in lagu xadgudbo hanti iyo maamul iyo xeerar iyo dastuur shacbiga Soomaaliyeed oo sidii la rabo loo maamusho shalay bay ahayd 3,333 kilomitir oo badda Soomaaliya baa waxaa la bixiyay 150 sharikadood oo Shiinaysa la siiyay waa nimankii soo xaalufiyay meesha la yiraahdo West Africa badda 6 bilood ku soo xaalufiyeen kuwaas baa faraha laga saaray waa aamusnayn maanta in la yiraahdo haddana in la yiraahdo maantay dastuurkii dalka u yimid muwaadin Soomaaliyeed baa u tartami karaa la tirtiraya xeerka kan halkan ku qoran oo 114 wuxuu leeyahay muwaadin Soomaaliya kaliya oo qualified baa u tartami kara Central Bank kaasa la tirtira xilliban waxaanu ku taariikhaysanaanaynaa inaanu galnay khiyaano qaran shacbiga Soomaaliyeed doqon maaha waana maqlaayaan marxaati bay ka yihiin ilaahay baa marxaati ka waxa weeye xuquuqda ay leeyihiin idinkoo 270 wakiilka ha baabiinina hal tirtirina waa ma